waxa ay dhawaan qurbajoogtii booqashada deegaanka ku joogay ay booqdeen degmada Awbare ee gobolka Jigjiga. qurbajoogii dhawaan deegaanka soo gaaray ee ka socday wadamada Yurubta iyo Kanada ayaa safarkii lugtoodii ugu horeysay ay ku soo indhaynayeen kuna soo xaqiijinayeen horumarka iyo waayaha nololeed ee shacbiga deegaanka uu ku sugan yahay ayaa wafdigoodan oo hogaaminayay ku-sisimaha madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mudane Cabdifataax Maxamed Xasan oo ay wehelinayaan mas'uuliyiin sarsare oo ay kamid ahaayeen ku-xigeenka madaxa xafiiska maaliyadda iyo horumarinta dhaqaalaha ee dowladda deegaanka Soomaalida Mudane Khadar Cabdi Ismaaciil, madaxa xafiiska qurbajoogta dowladda deegaanka Soomaalida Mudane Cabdi Maxamed Gamaadiid iyo mas'uuliyiin sarsare oo kale. wafdigan qurbajoogta oo ay maamulka degmada Awbare u fidiyeen casuumada ayaa sii maray wadada tuuleedka Tulli Guuleed intii ay ku sii jireen socdaalka wadada ayay indhahoodu sii qabanayeen dhul beereedyo ka muuqday oo teedsanaa wadada labadeeda dhinac ilaa ay ka gaadhayeen magaalada la faciisay degmada Awbare. qurbajoogtan oo mooganaa muddo wadankooda ayay aad u soo jiiteen dareenkooda sida ay dadweynaha degmadaasi ay sii marayeen sida ay u nabdoon yihiin dhulkan ugala soo baxayeen saraacyo beereedyada kala duwan iyadoo ay garab socdeen ardayda dugsiyada deegaanadaasi oo ku labisan uniformka direyska iskuulka. warku wuxuu intaas ku darayaa qurbajoogta oo dareenkooda ay soo jiiteen ayaa waxaa xusub mudan markii ay ka baxayeen degmada Jigjiga in magaalada ugu horeysay ee laga galay maamulka degmada Awbare oo lagu magacaabo tuulada Jaare oo ka tirsan degmada Awbare ayay dadweyne aad u tiro badan tubnaayeen wadooyinka hareerahooda magaalada iyagoo watay caleemo qoyan waxayna dadweynaha ku dhawaaqayeen erayadan. erayadaas oo muujinaya dareenkooda walaalnimo ee ay u hayaan soo dhaweynta walaalahooda qurbajooga ee wadankooda muddada mooga ayaa waxa ay aad u soo dhaweeyeen dadweynahaasi. ugu dambeyntiina wafdigani qurbajoogta ayaa qado sharaf casuumadeed oo loogu sameeyay degmada Awbare kadib isku soo maray magaalooyinka ka tirsan degmada Awbare oo ay kamid yihiin Jaare, Lafaciisa, Awbare iyo Wajaale.